السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا شرفت الوصول ماليت كسر هذا البرنامج كنا ولا شربتها وإن كي صباحا إن حافظ هيستون بارك إن هاونسلو ما أنتوا وحنا جوجا هيستون بارك مركا إكسايز كيدا عادي ما أنت هالكان كسوب إيه مركا ولا لا شرفت وحنا لقي بسنة يا كليها محاوف في عن وأنا جيدين شيء كلية حنون قبا كنتي متقنا 2020 كوراق اللي يسوق قري أولي الكلية هذا سيكون صعدان ده يكون صعدان waxaad ku dhamaanaysaa dialysis marka aad bay u liiteen marka ka bacdaan baraarugi marka walaalaha sharafta la nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu dawa'an ilaahi subhanahu wa ta'ala udur ma soo dejiyo illa waxa la soo diraa daawadiisa udur adduunka ma taqaana jira oo daawo lahayn ma laha hatta kuwan daawada wali loo arkin bini aadamka walahood maskaxdooda meesha gaarin mooyee daawo leeyihiin daawada ugu fiican walaalaha sharafta leh وحاوي وقرآن الكريم قرآن كإلهي سبحانه وتعالى إيو يعني متقنا الدعوين كنا محمد صلى الله عليه وسلم نادي مركو حيالها الداود وما أنت ربينا إيدين شيء ورنت أنيك اللي هي ذكر يوصل كعين وحاوي ولا لا شرفت الواكن جيت كاز والسلري على السلري وحاوايا علينا هاوي مركا ترتيب صوت دكان كسوية لا وتفريسا مركا sidiisa ku cunaysa marka waa aad iyo aad buu ugu fiican yahay mataqaanaa kiliyaha marka waxba aankay dhakhtarinta waxay leeyihiin waxba mataqaanaa hashiidin oo biyahaan ka dhigin sababtoo biyahaan markaad ka dhigtid waxaa la yiraahdaa potassiumkiisa yara badan marka waa kaasaas u diiraysaa afku ma iska gashanaysaa waad cunaysaa marka biyihiisa wixii kulli waad laqaysaa aad buu u fiican yahay marka saddex xabo oo kale kugu filan saddex laan oo kale kugu filan marka ama hadii kale inta aad awoodid salad ama taqaanada saladkii gaarigu ku jira salad waa wataa marka qudaarta aad u badso kan marka salad la yiraahdaa balka waxa weeye aad buu ugu fiican yahay kiliyaha marka waliba dadka dhiikarka qaba kiliyaha sokorto wadna xanuun intaba alxamdulillah waan qabaa anigu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadinayaa runtii marka hadda waxay noqotay walaalaha sharafta leh inaan aad iyo aad is ilaaliyo marka caafimaadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala haya laakiin waxaan ogaaday caafimaadka badana adaa gacantaada ku haya haddaan adi is ilaalinin cid ku ilaalinaysa malaha marka qof kastoo keliya xanuun qaba waxaan ugu baaqayaa mataqaanaa salarigaas soo badsa guriga dhigo shoppingkaada ku darso daily routine ha kuu noqdo maalin kasta mataqaanaa waxyaro ka cun iyo qudaarta alxamdulillah kaliyahiisaan hore inkugu sheeg walaalaha sharafta leh waxay marayeen 24 ay marayeen GFR-ka markay mataqaanaa dhakhtarada ay nephrology-ga la cabiray waxaa liigu yidhi hadday say ku socdaan sanad gudihiisa keliyahaada waxaad ku dhammaanaysaa dialysis meeqaa ka soo wareegtay 2020 ilaa hadda dhexdooda marka routiinaa ka dhigtay marka walaalaha sharafta leh qof kastoo Soomaaliyeed oo kaliya xanuun qabana u gudbi videogan fadlan ajar ka raadso videogan u gudbi geedka salary la yiraahdo salarygan soo gado ayarko diiro cun marka insha Allah ta'ala wad ku bogsoonaysaa ducooyinkana badso يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني اسكتوا في هذه إن شاء الله تعالى وتكبوا ديسان مركا ما أنت وحن دور بدي ولا لا شرفت له كيت كسلة رجع إن نلقى يبسط وجدي آد وعافمات قبل هذا كل حنون قبتوي كل هذا إلى علي أنت يرتأ كل هذا عليه مرة داي دامج جاران كليها سي لوصو يعني لوجها جاي عادي وقصة نقدان وأذكتها لكن وحيالها أد متقنا أد هجاجين كنت وحاوي كليها شقدوده أو مثلا إنه وسقدي أي صوص صاران أكله أو كاديدي أي متقنا صفي عن وصل بحد أكل ساس إذا حسكو كيني كرتا إن قدرت إيو وحيالها بركود أداء بسطه نقول الله شرفتها ما أنتوا عن اللجأ الذي أديكم بسم الله الرحمن الرحيم داهية مالك سلريجا إن المتقنا أسوق ذاتي إن دتك سومالي أو كلنا أدوق بسيط إن شاء الله تعالى تسواتس إن تنكله وحوي ولا الله شرفت له أنا قربها كنا البدنها ومدينا الصوماليات عرور تهنا دي بدنا كنا اللي بدنا حوق مسار
ولا الله شرط تدي رودي وقليل من عبادي الشكور إلهي سبحانه وتعالى ده تدي واجر عروتة حق ساران لكن بدنا سان وبدنا حق وحاسرنا أفريقيا قف كسر صومالي وحق ليه قريان ليه دكامان ليه بيران ليه متقانا قري ووينان دستي وروح صورنا مال ولالكي وحكوا بتريان عرورت هذا توحيد كود كددال أيقو حق سار ولما أنا وحنا قولة لها haddaad guryo ku leedahay xamar jigjiga jabuuti nairobi gurigaas asaga ah walaalkay soo gado guryaha raqiiska meesha kaasha lagu gadan karaa guriyo badan oo hadda mataqaanaa rag barkiisa ay ii sheegeen oo xamar iyo nairobi ay ku leeyihiin wallahi guryaha meesha waa ka qaalisiin guryaha ay dawladda dadka siisan ka hadlaya kaashaan lagu gadan karaa markaan qofka soo Soomaali wuxuu ku leeyahay aniga walaalkayow gurigeydi markaan xamar soo gada meesha ani ma degani war meesha ani hadda deganay ani ma degani waa runta hagaana waa ka soconaa laakiin wiilkaada ma ka socdaa gabadhaada ma ka socotaa kama socdaan caruurtaan hatta kuwii la geeyay waa kuwii soo noqday 30 sano ka bacdi dad soo noqdaan hayana oo meesha nimaaday marka cunugaada waxa ka dhaxlo yusiikumullahu fi awlaadikum saylaykum dhahay caruurtaada waxa ka dhaxleena please waa ku bariyahay guriga hadda laba guri hadda alxamdulillah guriga dalka Soomaaliya oo kale ama Nairobi ama Jigjiga dalkaas anaga iskale guriga raqiis seli kartaa adiga hatta ritaa dad barkiis waxay ku leeyihiin ritaayana ku noqonaa ritaayad kuma noqonays waxaas waa dream inaan dhaw waa riyo waay dad barkiis oo guri dhiseenoo hadda 70 jir meesha wali la joogo oo ilaa hadda bixin markaan meesha aad ritaayad ku noqonaysaa haddaad run sheegaysa caruurtan urar oo caruurtan meesha geey oo diintooda iyo dhaqankooda iyo dalkoodii soo bar ma suubinayna marka caruurteena halkaas aan haynaa dhuunto laakiin uma joodno marka walaalaha sharafta caruurtan ka fikirna masaakiinta oo ilaahay nagu aamin waxa kale oo idin sheegayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna li nafsika alayka haqq naftaada xaq bay ku leedahay xaqeeda si dadkeena qurbaha ku nool badana anagu lafteena waa hilmaan anigu hadda cudurada faraha badan maxay igu ridi waxa weey waxaanan qaadi karin baan qaaday habeenkii waxa laga yaabaa 3 saac oo kala saxan jiri ama 4 saac oo kala saxan habeenkii markaan yani 7 days a week waa shaqeeyay marka maxay igu dhacay yani dhiikar baa igu dhacay 2009 dhiikarkiisu u socday cudurro badan buu watay dhiikarka wuxuu ii keenay dhib fara badan waxaanu ma taqaanaa sokortaan iyo kaliya xanuunkaan iyo wadnahan iyo dhiikarka keenay laakiin haddii ma taqaanaa is ilaalin lahaa oo si Allah subhanahu wa ta'ala uu dhahay ya ayyuhal ladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara yani ku alla rumeeyo naftiina badbaadiya naarta ka badbaadiya da ahlkiina ka badbaadiya marka naftiina badbaadiya naarta bismaha adi laftaada ilaali waaye inna li nafsika alayka haqq naftaada biyo badan cab ma taqaan exercise fara badan suubi cunto caafimaad qaban dadkeeni dibadda joogi hatta cuntada waa laga dhaqoolaa qofku wuxuu ku leeyahay maanta maqaayad hadaan galo waxa laga yaabaa $10 ama $15 asaga diidaya intuu wada laakiin guri buu ku faanaya xamar oo ka dhisay ama Jigjiga ama Nairobi ama Hargeysa intaas wuxuu ku leeyahay hebel gurigaas oo dhigay naftiisa waa socotaa marka fadlan laftaada ka fikir ilaahi subhanahu wa ta'ala hatta naftaada u baq barakallahu fiikum intaas ku soo gabagabeynaya kili hada ilaali fadlan videogan dadka kiliya xanuunaya usii gudbi walaashay walaalkay barakallahu fiikum jazakumullahu khayr jazaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh